Ku soo dhawaada safar kale, maalin kale iyo buug kale. Maanta waxaan falaqeynaynaa oo aan aad kugu soo koobayaa buugga muhiimka ah ee la yiraahdo Aabba Faqiir ah iyo Aabba Hodan ah. Rich Dad Poor Dad waxaana qoray qoraaga caanka ah ee la yiraahdo Robert. Buuggan waa mid ka mid ah buugaagta adduunyada ugu saameynta badan iyadoo malaayiin koobi ah laga sameeyay sanadihii la soo dhaafay. Waxaa lagu turjumay in ka badan 15 luqadood oo kala duwan. Sababtuna waxay tahay buuggan muhiimadiisu inay tahay mid aan la heli karin oo dad badan u arkaan inuu yahay dheemankii maalgashiga oo banaanka la soo dhigay. Balka hore buuggan haddii aad 10 daqiiqo oo kaliya aan kugu fahansiiyo oo aad waqti dab isaga bixin. Haddii aad rabto inaad fahanto sababta dadka qaar ay lacagta ugu shaqeyso halka kuwa kalena ay noloshooda oo dhanba ay lacagta ugu shaqeeyaan, buuggan ayaa ka mid ah kuwa ugu saameynta badan ee dunida dhaqaalaha ee shakhsiga ah. Qoraagu waxa uu ka sheekeynayaa 2 nin oo noloshiisa saameyn weyn ku yeeshay. Mid waxa uu ahaa aabihiis oo waxbarasho sare lahaa, shaqo wanaagsan haystay, balse mar walba lacagta ka wuli jiray. Robert waxa uu ugu yeeraa ninkaas aabba faqiir ah. Waa ninkii waxbarashada sare lahaa, shaqada wanaagsan haystay, laakiin lacagta ka wuli jiray. Wuxuu ugu yeeray aabba faqiir ah. Midka labaadna waxa uu ahaa aabba saaxiibkiis, nin ganacsada ah oo iskuulo badan aan dhigan, jaamacado aan dhigan, balse hantidiisa ay si joogto ah u korortay. Isagana waxa ugu yeeraa aabbe hodan ah. Hadda ogow, ninkii jaamacadaha ka baxay oo waxbarashada lahaa waxa lagu yeeraa aabba faqiir ah. Ninkii iskuulada iyo jaamacadaha badan aan dhiganna waxa lagu yeeray aabbe hodan ah. Labada ninba waxay lahaayeen laba aragti oo gabi ahaanba kala duwan. Meeshaas waa meesha laga rabo inaad fahantid. Aabba faqiir ah waxa uu oran jiray wax fiican baro, shahaado qaado, shaqo fiican hel. Wuxuuna aaminsanaa in shaqada joogtada ay tahay wadada guusha. Aabbaha hodankaasi waxa uu oran jiray baro sida ay lacagta u shaqeyso. Ha noqon qof lacagta u shaqeeyo ee noqo qof ay lacagta u shaqeyso. Casharka ugu weyn ee buuggan waa farqiga u dhaxeeya hanti iyo deyn oo labadaas ay tahay inaad kala fahanti. Dadka badankood waxay u maleynayaan in guriga weyn, gaariga cusub, alaabta qaaliga ay yihiin hanti. Laakiin Robert waxa uu leeyahay hanti waa waxa lacag ku soo geliya ama waa waxa jeebkaaga wax soo geliya. Deynna waa waxa culays dhaqaale saara jeebkaaga ama jeebkaaga lacag ka saara. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay guri aad ku nooshahay oo bil kasta qarash badan kaaga baxayo, gurigaasi ma ahan hanti sida uu qoraagu qabo. Laakiin haddii aad leedahay dukaan, dhul kiraysan, saamiyo, ganacsi lacag kuu soo saara, adigoo aan si toos u shaqeynayn, taasi waxay ka dhigan tahay inaad leedahay hanti. Dadka saboolka ahi waxay kasbadaan lacag kadibna si degdeg ah u isticmaalaan. Dadka dabaqada dhaxana waxay kasbadaan lacag kadibna waxay iibsadaan waxyaabo ay u maleynayaan inay hanti yihiin. Dadka hodankaasi waxay marka horeba iibsadaan hanti dhab ah. Hantidaas ayaana lacag badan u dhalisa. Kadibna waxay ku iibsadaan waxyaabaha raaxada ah. Hantida markay soo gashay waxyaabo lacag u dhalin kara ku iibsanayaan. Kadibna waxyaabahaas lacagta u dhali kara wixii kaga soo baxa ay waxyaabaha raaxada ku iibsanayaan. Waa dadka hodanka ah ama dadka taajiriinta ah. Buuggu waxa uu sidoo kale ka hadlayaa dhibaatada ugu weyn ee dadka haysata waa 2. Waa cabsi iyo damac. Dad badan waxay ka baqaan inay lacag lumiyaan, sidaa daraadeed ma maalgashadaan. Kuwa kalena markay lacag helaan waxay ku degdegaan inay iibsadaan waxyaabo qaali ah si ay dadka kale ugu muujiyaan inay guuleysteen. Labaduba waxay noqdaan waa 2 caqabad oo ka hor istaagta kobaca hantidooda. Haddii labadaas dhacdo ay ku haysato waxay ka dhigan tahay inaad tahay qof aan rabin hantidiisa inay kororto. Waxaana ku hortaagan waa damac iyo cabsi. Haddii aad ku dhaqaaqdid waxyaabo qaali ah oo dadka aad u muujinayso inaad guuleysatay, haddii aad samayso waxay ka dhigan tahay inaad isbaaro u dhiganayso kobaca hantidaada. Aabba hodan ah wuxuu carruurta baray in qaladaadku yihiin qaybo ka mid ah waxbarashada. Haddii aad ka baqdo guul darro, weligaa ma gaari doontid guul weyn. Dadka hodanka ay marar badan bay fashilmaan, laakiin waxay ka bartaan casharo cusub.
qoraagu waxa uu si adag u dhaliilayaa nidaamka waxbarashada ee dunida. Waxa uu leeyahay iskuulladu waxay dadka baraan sida shaqaale wanaagsan loo noqdo, laakiin ma baraan sida ganacsi loo abuuro, sida loo maalgashado, sida cashuuraha loo fahmo, iyo sida lacagta loo maareeyo. Sidaa daraaddeed, qofka doonaya xorriyad dhaqaale waa inuu si iskiisa isku baraa aqoonta lacagta, waa inuu fahmaa dakhliga, qarashaadka, hantida, deymaha iyo maalgashiga. Buug waxa uu sharaxayaa fikir muhiim ah oo la yiraahdo rat race. Taas waa wareegga ay dad badani ku jiraan: shaqee, mushaar qaado, biilal bixi, deyn cusub qaado, haddana shaqee. Sanado badan ayay ku socotaa noloshooda iyagoo aan weligood gaarin xorriyad dhaqaale. Jidka looga baxo wareeggaas waa in la dhiso ilo dakhli oo badan. Halkii qofku ku tiirsanaan lahaa hal mushaar, waa inuu yeeshaa ganacsi, maalgashi iyo hanti kale oo lacag soo saarta. Casharka kale ee muhiimka ah ee buuggu bixiyaa waa in dadka hodanka ah aysan lacagta u arkin hadafka ugu dambeeya. Waxay lacagta u arkaan qalab. Waxay bartaan sida loo abuuro fursado, loo xalliyo dhibaatooyinka, iyo sida hantida loo kobciyo. Lacagtu waxay noqotaa natiijada aqoontaas. Taas waa inaad fahantaa. Ugu dambeyntiina, fariinta ugu weyn ee buuggaani ku jirta, haddii xataa iska dhaafto oo aad akhrin oo fariintan kaliya aad fahantid, waxaad ogaanaysaa buuggan oo 300 oo baal ah in hal fariin bes haddaad fahantid aad u baahnay inaad akhrisid. Ha ku mashquulin oo kaliya inaad mushaar badan hesho. Ku mashquul inaad barato sida lacagta loo maareeyo. Marka hore dhis hanti lacag kuu dhalisa. Ha ku degdegin muuqaalada hodantinimada. Dhis saldhigga hodantinimada. Baro xirfadaha ganacsiga, maalgashiga iyo maamulka lacagta. Markaas lacagtu waxay bilaabi doontaa inay kugu shaqeyso halkii aad adigu u shaqayn lahayd. Taasi waa dheemanka ugu weyn ee buugga ku dhex jira. Aabba faqiira iyo aabba hodan ah. Qofka hantida dhisaa wuxuu maalin helaa xorriyad dhaqaale. Qofkii mushaarka kaliya ku tiirsanaana wuxuu ku sii jiri doonaa shaqada inta noloshiisa ka dhiman. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waa ku mahadsantihiin waqtigiina. Fadlan subscribe, like, share, comment noo soo sheeg buugga ku xiga ee ay tahay inaan sidaan oo kale usoo koobno. Mahadsanidin.